السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. dawadayaal ku soo dhawaada war degdega madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa isagu ku dhawaaqay in uu joojiyay xafladii buugga xeerayse ee dhibaatada Boorama ka dhigay rabshadaha maanta ka socda magaalada Boorama. madaxweynaha oo markaasi khudbadiisii soo jeediyay saaka ayaa waxa uu dhignaa hadalkiisii sidan dabasho wanaagsan. maanta الرحمن الرحيم dhammaan bulshada reer Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo caasimadda Boorame waxaan ugu baaqayaa nabad, xasilooni iyo isku duubni ummadeed. madaxweyne ahaan waxaan diyaar u ahay wax kasta oo dhiigga dadkaygu ku baaqanay, wax kasta oo ummadaydu ku heshiinayso, iyo wax kasta oo qarannimada Somaliland iyo dadkayga dan u ah. maanta waxaan madaxweyne ahaan joojiyey munaasabadda xuska xeerayse anigoo ka eegaya danta guud iyo dareenka ummadayda, annaga oo u dhega nugul wax kasta oo maslaxad guud ee ummadda ku xidhan tahay, iyo inaan dhaawac iyo murkucasho soo gaadhin wada noolaashiyaha dadka walaalaha ah ee reer Somaliland. waxaan faraya ciidamada kala duwan ee nabadgelyada in la adkeeyo amniga, khasaare dambana aanu dhicin. shacbigana waxaan ugu baaqayaa inay dareenkooda xakameeyaan. maantana wax kasta waxa iga muhiimsan nolosha ummadayda. ugu dambayn waxaan ayidayaa waan adkaynayaa gogasha madax dhaqameedka reer Somaliland ee isxilqaamay ay u dhigeen beelaha walaalaha ah ee reer Awdal iyo reer Sanaag. ciidamada nabadda ha sugaan dhammaanba dadka reer Somaliland, gacmaha ha isu qabsadeen in la saxo wax kasta oo inaga khaldamaya. waxaana ku kalsoonahay in dadkaygu ka heshiin doono. waa tahay dawadayaal, halkaasi waxaa ku dhammaaday khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ka jeediyey xafiiskiisa madaxtooyada. waa tahay hadalkani waxa uu muuqdaa in madaxweynuhu shalay markii uu hadlayey ay ku habbooneed inuu markaasi israaciyo, balse talo iyo qorshayaal. madaxweynuhu waxa uu shalay sidoo kale uu hadal ka jeediyey arrinta ku saabsan rabshadaha ka socda Boorame. uu kula dilayey shacabka reer Boorame in ay joojiyaan rabshadaha, isla markaasina waxa uu fasaxay in ciidanka laga saaro magaalada Boorame. maantase waxa uu keenay in uu joojiyey gab ahaanba xafladda buugga xeerayse. waxaa la odhan karaa madaxweynaha waxa ay ku habbooneed inuu shalay iswada raacsado go'aamadiisa uu fulinayo, waayo sirtu waxa ay ka qorantay ama rabshadu ka bilaabatayba waxa ay ku salaysneed buugga xeerayse xafladdiisa la doonayay in lagu qabto magaalada Sanaag. haddaba arrimahan Boorama ka socda waxa ay ku sii siqayaan meelo khatar ah, isla markaasina waxa gacmaha soo geliyey oo iyagu markaasi gacmaha kula jira gacmo shisheeye oo ay ka mid yihiin dowladda Jabuuti iyo dowladda Soomaaliya, oo markaasi iyagu dabada ka riixaya in hawsha iyo dagaalka iyo rabshaduhu ay sii socdaan si markaasi gobolka Awdal looga saaro maamulka Somaliland sidii looga saaray gobolka Sool bari magaalada Laascaanood maamulka Somaliland. arrimahan soo taraya ee rabshadaha Boorama ka socda si degdega ayaanu idinla soo socodsiin doonaa wixii ka soo kordhaa. haddaba ha magaalina la socda wararka EBC News si joogto ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.